Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad baan idin salaamayaa meel walba aad joogtaan. Maanta waxaan jeclaystay inaan idinkula wadaago muuqaalka 5 calaamadood oo ka dhigaya inaad noqoto waxay ku magacaabaan better person ama qof xooggan oo dadka kale ka duwan. Sidaas awgeed waxaad u baahan tahay inaad ogaato wixii aad ku barbaato inaad noqonayso. Haddii maanta dhan gadgadinayso TikTok iyo kumanaankaas muuqaal sawiro ee qof walba soo dhigayo, waxay kugu yeelanayaan saameyn aadan dareemayn maanta. dhinaca kale haddii aad maalin walba dhegeysanayso aqrinayso culumta ka buuxda internetka, waxaa hubaal ah inaad kobcayso aadna dareemayso inaad ka duwan tahay kii shalay. Sidaas awgeed ku soo dhowow daawada muuqaalkeena maanta. Qodobka koowaad, baro naftaada. Inaad barato naftaadu waxay kaa caawinaysaa inaad barato meesha aad u socoto, hadafka aad nolosha ka leedahay. Markaa self awareness-gaaga aad fahantid, waxaa muhiim ah inaad garanaysid faa'iidooyinka aad ka helaysid. Ilaa waxaan kuu sheegayaa 3 faa'iido oo kala duwan oo aad ka helayso markaad naftaada si fiican u barato. Faa'iidada koowaad ee aad ka helaysaa waa inaad shakhsi ahaan u horumartaa. Waayo marka aad ka warqabtid waxa aad dareemaysid, ka warqabto waxa aad ku liidato, waxa aad jeceshahay iyo waxa aad neceb tahay, waad garan kartaa meesha aad u socotid, horumarna waad samayn kartaa. Faa'iidada labaad waxay kaa caawinaysaa inaad noqoto qof problem solver ah, ama inaad noqoto qof problemka nolosha haysta xalkeeda inuu helo ay aad iyo aad ugu fududahay. Faa'iidada saddexaad ee aad ka helaysaa waa inaad noqotaa self acceptance. Naftaada inaad aqbashaa waa markaad is ogsoon tahay adiga waxa aad jeceshahay iyo waxa ku dhibaya ee aad karahsanayso ama aad neceb tahay. Waxaana muhiim ah in aadan naftaada qof kale barbar dhigin ee adigu naftaada aad isbarbar dhigto. Sanad ka hor sidaan ahaa ma ka fiicanahay cibaado ahaan iyo cilmi ahaanba. Qodobka labaad, waxaad bilowdaa inaad la qabsato isbeddelka. Waqtigan aynu noolnahay waxaa qasab ah inaad noqoto qof mar waliba la socda isbeddelka dunida ka dhacaya, haddii ay noqoto dhan dhaqaale iyo dhan aqooneedba. Sidaas awgeed waxaa arrin lagama maarmaan ah inaad noqoto qof mar waliba update ah, si aanan hirdanka nolosha lagaaga adkaan. Qodobka saddexaad waa inaad yeelataa yool iyo hadaf go'an oo aad doonayso inaad ka dhabayso. Haba ugu horeyso raaligelinta Ilaahay oo ah shayga ugu muhiimsan ee ah inuu qof waliba ku dadaalo. Qodobka afraad waa inaad mas'uuliyadda naftaada qaadaa. Inaad ka cararto ama aad ka gabato qaadida mas'uuliyadda naftaada waxay ka mid tahay sababaha soo dedejiyay guuldarrada. Wajah dhibaatada ilaa aad ka xalinayso. Tani waa waxa kaa dhigaya qofka aad rabto inaad noqoto. Qodobka shanaad, ugu dambeyn waa inaad aqbashaa ceebahaaga iyo khaladaadkaaga. Jooji inaad ka cabsato inaad khalad samayso. Inaad wax samayso aad khaladaa waxay 10 jeer ka wanaagsan tahay in aadan waxba samayn. Guul kasta waxa ay leedahay fashil badan. Fashil kastaana waxa hubaal ah inuu ku gaarsiinayo guushii aad rabtay ugu dambeyn.